سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوداشا قيمها بدن وسلامنتين مركز دونو دافيد كجوجتا كسو دوادا برنامج كينا ورارك أخباراتك أفلامت هندية دمان شركتها أنا كسو قادن دون qodobada barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaa ka cusub filimka weyn Triple R oo wali shaqadiisa socoto Kiara Advani oo gacanta ku dhigtay filim weyn oo iska leeyahay Ashutosh akhbaar xiiso badan fardeeqan oo soo laabanaya wali wuxuu sameyn doonaa filimada online-ka ah SRK DBK iyo John Abraham oo la ogaad halkay ku duubayeen jadwalkooda xiga filimka weyn Button qodobadaas iyo qodobo kale ee barnaamijkeena ku maqli doontaan ku soo dhawaada channelkeena fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb SRK DBK iyo John Abraham oo la ogaada halka ay ku duubayeen jadwalkooda xiga filimka weyn Button hawsha filimka Button ayaa si habsami ah u socota kooxda mashruucan jadwalkooda koowaad ee filimkan ay durba soo gabagabeeyeen waxayna ku duubeen gudaha Mumbai balse John Abraham kama qayb qaadan jadwalka koowaad ee duubista waxaana hore loo sheegay inuu Janaayo kooxda ku soo biirayo SRK iyo DBK ayaa duubista wadeen inkastoo DBK mashaariicdeeda kale ku mashquushay haddana waxaa la ogaaday jadwalka labaad halka lagu duubayo iyo xilliga la duubayo sida wararka sheegayaan magaalada ama caasimada Abu Dhabi ee Imaaraadka ayaa lagu duubayo jadwalka xiga ee mashruucan waliba sanadka cusub bisha Janaayo kooxda halkaas ay u safrayaan Button waa filim dagaal iyo qiyaan isku dhex jiro John ayaa laader ka ah halka SRK atore ka yahay door askari aynu ku jilay ayaana muuqata halka DBK askari tababaran oo SRK garab siinayso ku jilayso filimkan sidoo kale mashruucan waxa agaasimay Sadad Ananda halka Yashraj Films maalgelinayso waana mashruuc SRK soo laabasho weyn inuu ku sameyn doono loogu talagalay qorshahan waa in la daawado Diwaali 2021 filimkan waa dhamaadka sanadka dambe maxaa ka cusub filimka weyn Triple R oo shaqadiisa wali socoto director SS Rajamouli wuxuu bilooyinka ugu dambeeyay waqtigiisa oo dil wada geliyay dhameystirka filimka weyn Triple R ee hogaamiyaal ka yihiin Ram Jaram iyo Junior NTR halka Ajay Devgan iyo Alia Bhatt door muhiim ay ku leeyihiin waana filimka ugu weyn fanka Hindiya oo idin la imaan doonaan sanadka dambe maadaama miisaaniyad xoogan xambaarsan yahay sidoo kalena jilayaasha fanka ugu awooda badan la isugu keenay si caalami ahna loo sameynayo filimkan waxaa la ogaaday in hadda kooxda filimkan Triple R ku sugan yihiin deegaanka beeraleyda ee gobolka Maharashtra ka tirsan waxayna ku duubayaan jadwalkooda kooban oo Ram Charam iyo Junior NTR u gaar kadibna waxaa la sheegay in kooxda filimkan ku laaban doona magaalada Hyderabad si loogu soo gabagabeeyo shaqada mashruucan oo haatan la sheegay in inta badan 90% in la duubay filimkan Triple R waxaa lagu daawan doonaa luqadaha Telugu Hindi Tamil Malayalam iyo Canada waana filim miisaaniyad xoogan xambaarsan oo sare u dhaafaysa 450 karoor waxaana lagu kalsoon yahay ganacsi taariikhi inuu sameyn doono filimkan sanadka dambe marka tiyaatarada la saaro maadaama uu director ka yahay SS Rajamouli oo ku caan baxay sameynta aflaam tayo wanaagsan waliba awood ahaan Hindi ku qabsaday labadiis filim ee ugu dambeeyay Bahubali 1 iyo Bahubali 2 Ram Jaram iyo Junior NTR waxay filimkan ku matalayaan laba dagaalyahan oo xurmada Hindi u dagaalami doonaan 1920 waxayna ku soo bandhigi doonaan awood xad dhaaf ah ayagoo gumeysiga Ingiriiska xilligaas Hindi ka haystay la dagaalami doonaan halka Ajay Devgan isagana garab weyn siin doona sidoo kalena waxaa la aaminsan yahay in Alia Bhatt filimkan ku jilayso Ram Jaram lamaantiisa Kangana Ranaut oo ciwaano wanaagsan sameynayso maadaama kaarta laga soo bandhigay filimkeeda Tailavi atirishada caanka Kangana dhawaanahan ciwaano wanaagsan ma sameeyeen waxayna maalmihii ugu dambeeyay ku jirtay dagaal dhanka baraha bulshada xilli ay ka been sheegtay haweeney waayeel oo sawirkeeda soo xigatay kadibna sheegtay in lacag lagu sii in si qayb kaga noqoto dibadbaxa ka socda waqooyiga Hindi ee beeraleyda wada balse Kangana qalad ayay gashay maadaama haweeneydan guri joogto ah qof waayeel iska tahay wax dibadbaxna aan ka qayb galin haatan Kangana waxaa laga dalbanaa inay raaligelin bixiso iyo magdhow inay siiso islaantaas waayeelka ah sheekada nolosheeda gaarka markii meel la iska dhigo Kangana maadaama ciwaano wanaagsan ay sameynayso maadaama aragti ama kaarta laga soo bandhigay filimka weyn oo ay hogaamiyaha ka tahay laguna magacaabo Tailavi waana mashruuc ay ku matalayso gabadh siyaasi ahayd iyo atirishadii reer Tamil Jalati nolosheeda mashruucan lagu hadlayo Jalati waxay geeriyootay 5 December 2016 sida darteeda kaartada filimkan Tailavi waxaa lagu soo beeyay xil ay ku beegan tahay geeridii Jalati mashruucan Kangana waqti badan ayay gelisay si ay 100% kaga run sheegto door ahaan noloshii Jalati waxaana haatan si weyn loogu amaanaya qaabka Kangana isugu diyaarsay filimkan iyo kaartada laga soo bandhigay filimkan Tailavi waxaa director-ka Alvijay halka soo saarayaal ka yihiin Vishnu qorshahan wuxuu yahay filimkan in la daawado xagaaga nagu soo fool leh 2021 sidoo kale
luuqadaha Hindi, Tamil, Telugu iyo Malayalam ayaa lagu daawan doonaa. Waxayna haatan Kangana ku sugan tahay magaalada Hyderabad si ay ku howlan tahay soo gabagabaynta duubista mashruucan filimkan xiisaha badan. Kiara Advani oo gacanta ku dhigtay filim weyn oo iska leeyahay Ashutosh. Filim sameeyaha Ashutosh lagu gaaro diyaarinta aflaamta tayada wanaagsan, waxaana weligiis lagu xasuusan doonaa filimada kalaasiga sida Lagan, Swedish iyo Jodha Akbar oo bilado badan caalami ah lagu qaatay. Haatan wuxuu sameeyay shirkadda filimada maalgelis ee lagu magacaabo Ashutosh Production, waxaana madax ka ah xaaskiisa Sunita. haatan filim sameeyahana wuxuu la saxiixday atriishada soo caan baxday Kiara Advani si ay hogaami kaga noqoto filimkiisa xiga ee shirkadiisa maalgelinaysa oo lagu hadlayo awoodsiinta dumarka iyo sheekooyinka ay wax ka qabteen hay'adda maxalliga ee lagu magacaabo Lijad. Kiara Advani waxay filimkan ku matali doontaa sheeko dhab ah oo ka hadlayso haweeney guri joogto oo ganacsi yar bilaabaysa ilaa ganacsigeeda heer sare gaaro. waxaana la shaqeynayaan oo garab siinayaan 6 haweeney oo guri joogto ah, waxayna garab siinaysaa kumanaan hooyooyin ah oo guri joogtooyin ah kuwaas oo shaqo haysan baahiyo gaar ahna qabaan. filimkan Ashutosh soo saare kaliya ayuu ka yahay, waxaan agaasimi doonaan ama director ka noqonayaan labada lagu magacaabo Gilin iyo Anukshush oo horey Ashutosh kaga caawiyeen mashaariic kala duwan uu sameeyay. waxaan lagu wadaa mashruuc in duubis lagu bilaabo horaanta sanadka cusub. madaalaha Bollywoodka Akshay Kumar oo si rasmi ah u xaqiijiyay in duubista filimka Atranji bilaawatay, weliba filimka atriisho kuwaad ay ka tahay Sara Ali Khan, superstarka ugu shaqada adag Bollywoodka. waqtigan Akshay Kumar ayaa si rasmi ah baraha bulshada ugu shaaciyay in duubis ku bilaawatay filimkiisa xiisaha leh Atranji, kaasoo ay atriisho kuwaad ka tahay Sara Ali Khan oo ah gabadha waqtigan ugu hadal haynta badan shirkadda Bollywoodka. qof walba wuxuu isweydiinayaa qaabkay isugu soo baxayaan jecel ahaan Akshay Kumar iyo Sara markii filimkan la daawanayo, waana arrin xiiso leh. mashruucan waxaa kaloo qayb ka ah superstarka reer Tamil Dhanush, halka uu director ka yahay Ananda. Kumar ayaa baraha bulshada ku sheegay in ugu dambeyntii duubista filimkan bilaawatay, kaamiradan la shiday, wixii hadda laga dambeeyana sii socon doonto duubista filimkan ilaa sanadka cusub. waxaa sheekada filimkan qoray Himanshu Sharma, sidoo kale muusiga waa Rahman. qorshahan wuxuu ahaa in la daawado Febraayo 2021 balse wax walba waxaa caqabad ku noqday koronaha dartiisa, sidaa darteed filimkan dib u dhac ayaa ku imaaday, welina lama shaacin xilliga la daawan doono. Sanjay Dutt iyo mashquulka bishan December haysato 2 filim ay isku dulduubayaan. tan iyo markii Baba of Bollywood Sanjay Dutt uu ka soo kabtay xanuunka kansarka dhanka samabada kaga dhacay, wuxuu bartanka ka galay mashquul xad dhaaf ah, balse bishan December uguma sii jirto maadaama uu ku sugan yahay magaalada Hyderabad, wuxuuna habeen iyo maalin isku dulduubaya 2 filim oo waaweyn oo wax ka hogaaminayo. Sanjay Dutt wuxuu haatan soo gabagabayn rabaa jadwalka ugu dambeeya filimkiisa Bhuj The Bride of India oo Dubai qaybo ka mid ah lagu duubayo, halka qaybta kalena Hyderabad lagu dhammaystirayo. waxaana kula jiraan Ajay Devgan, Nora Fatih, Sonakshi Sinha iyo jilayaal kale. markay shaqadiisa soo ilaato filimkan barta Disney Plus hosta ayaa online ahaan loogu daawan doonaa. Sanju Baba sidoo kale wuxuu haatan duubis ku wadaa filimka weyn KGF Chapter 2 oo ultimadiisa ama dhamaadkiisa magaalada Hyderabad lagu doowayo, waxaana xusid mudan jadwalka xasaasiga inuu u gaar yahay asaga iyo Oladar ah filimkan iyo Rock Star yaasha oo atooraha kuwada ah filimkan. Sanjay Dutt wuxuu doonayaa labadan filim inuu ku soo rogaal celiyo, sidoo kalena kadib wuxuu duubis ku bilaabi doonaa horaanta sanadka cusub. qaybaha ugu harsan filimkiisa Prithviraj ee superstar Akshay Kumar hogaamiye ka yahay, halka shirkadda weyn ee Sharaj Films soo saare ka tahay. ugu dambeyntii Sanjay Dutt jimcadan 11 December 2020 waxa uu soo bixi doona filimka Tarbas oo barta Netflix online ahaan loogu daawan doono, waxaana ku weheliyaan filimka Nargish Fakhri iyo Rahul Dev, waana filim ku dhawaad 3 sano ka hor shaqadiisa bilaabatay. ugu dambeyntii la dhammaystiray haatan internetka laga daawan doono oo aan tiyaatarada Hindi ku yaal la saari doonin filimkan. akhbaar xiiso badan Fardeeqan oo soo laabanayo, waliba filmaanta online-ka ayuu sameyn doonaa. xidiga caanka sidoo kale Bollywoodka laga jeclaan jiray Fardeeqan ayaa shaashada dib ugu soo laabanaya, markaan qorshihiisan wuxuu yahay inuu sameeyo filimada sida online-ka loo daawado maadaama uu suuqa noqday haatan jilayaal kasta uu fursad sidoo kale kobac xoogan sameynaya dhanka dhaqaalaha ah. sidaa darteed Fardeeqan wuxuu la kulmay director Mukesh Chopra oo sameeyay filimkii Dil Bejara oo ahaa Sushant Singh Rajput geeriyooday filimkiisa ugu dambeeyay online ahaan loo daawaday.
dabiiqadii July 2020 Mukesh Chopra wuxuu caan ku yahay inuu jilayaasha u raadiyo sameynta mashaariic kala duwan sida darteeda Fardeeqan wuxuu iska diiwaan geliyay xafiiska Mukesh Chopra si loogu raadiyo shirkad uu u sameeyo filimada sida online ah loo daawado sidoo kale Fardeeqan miisaanka ayuu iska dhimay sida aad sawirka kaga arki kartaan wuxuuna isku soo diyaariyay inuu shaashada ku soo laabto isagoona toorahan diyaar u ah sameynta door walba laga siinayo filimada online ah loo daawado sidoo kale Fardeeqan wuxuu saxaafadda u sheegay in xitaa uu maalgelin doono sheekooyinka kala duwan haddii ay filim sameeyaasha u soo bandhigaan mashaariic qanciyaan sidoo sheeko ahaan kadibna uu hogaamiye ka noqon doono Fardeeqan sanadkii 1998 ayuu Bollywood-ka ku soo biray wuxuuna ku soo caan baxay filimkan Prem Aggan kadibna wuxuu sameeyay aflaamo kala duwan xidigan filimkiisa ugu dambeeyay uu door dhameystiran ku lahaa lana daawaday wuxuu ahaa Dulha Mail Gaya oo sanadkii 2010 la daawaday taasoo ka dhigan in muddo 12 sano uu shaashada ka maqnaa aktarkan haddan uu rajeynayo inuu ku soo laabto filimada online-ka ah halis dhaco waa sheekadiina Govinda oo ka hadlay dareenkiisa iyo sida uu arko dib u sameynta aflaamtiisa iyo heesihiisa kalaasikada ahaa Govinda waxa uu soo maray xilli uu hogaaminayo shirkadda Bollywood isagoona ah aktarka kaliya la hubo kaasoo sanad waliba sameyn kara hal filim oo hit oo dhameystiran ah aktarkan oo dhawaanahan fanka si hore ugu soo muuqan ayaa ka hadlay dareenkiisa kaasoo ah arrin si weyn loo sugaa inuu isaga jawaab ka bixiyo ama uu ka hadlo sida dareenkiisa sida uu arko goosgooska dib u sameynta filimkiisii Kolin number 1 iyadoo dhawaan filim sameeyaasha Bollywood ay bilaabeen inay dib u sameeyaan aflaamtii iyo heesii classic-ka ah xilligii 90-maadkii gaar ahaan Govinda aflaamtiisa sida Kolin number 1 kaasoo hadda dib u sameyntiisa aktarka Farhan uu sameeyay Govinda ayaa saxaafadda waxa ay ka weydiisay sida uu arko dib u sameynta filimkiisa Kolin number 1 kaasoo in badan oo jilin laga soo qaatay qaybta koowaad oo aktarkan hogaamiye ka yahay qaasaan heesihiisa caanka ee filimkiisa ku jiray sida la soo warinayo aktarka Govinda ayaa sheegay inuusan ku faraxsaneyn sida loo sameeyay filimka Kolin number 1 kaasoo lagu tilmaamay mid aan wanaagsan gaar ahaan waxa si weyn loogu fashilmay jiritaanka shactirada iyo waliba sameynta heesihiisa classic-ga isagoona sheegay Farhan ay si weyn u qaldeen qoobka ciyaarka mana aysan xitaa soo dhaweynin qoobka ciyaarista ugu soo bandhigay filimkii Kolin number 1 oo asiga 90-maadka sameeyay isku soo wada Govinda hadalkiisu wuxuu yahay Kolin number 1 dib u sameyntiisa inay wax badan qaldeen kooxda filimkan sidoo kale dhaliil xoogan u soo jeeday aktarka filimkan hogaaminaya Farhan Dhawan waxa halkaas inoogu dhan barnaamijkeeni fadlan asxaabta inta badan muuqaalka way daawataa subscribe noma saarto fadlan dhiirigelintiina inoo muhiim fadlan subscribe saar. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.